ciidamo ka tirsan kuwa Xisbullah ayaa weerar ku qaaday ciidamada Israa'iil waxayna ka dileen ugu yaraan 4 askari halka 10 kale la dhaawacay xadka Lubnaan ee isku hor fadhiyaan labada dhinac ayuu dagaalkaas ka dhacay. dhinaca kale ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa duqeymo ka geystay bartamaha magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Suuriya xilli dagaalka Israa'iil iyo sidoo kale walaalaheena muslimiinta ee reer Falastiin uu cirka isku shareerayo. dhinaca kale wararkeena waxaa ku jira xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken waxa uu ku go'doonsan yahay magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil kadib safarkiisii 11aad oo toddobaadkan ku yimi halkaasi waxaana jira in dhulka hoostiisa loo dhaadhiciyay bacdama ay dhawaaqayaan siriyaasha digniinta iyo raadeeradii Mareykanka uu keenay oo dhan. soo dhawaada daawadayaal warbixin xasaasi ah ayaan soo gudbinaynaa muuqaalka like sar oo la wadaag saaxiibadaada. hagaag xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa safar ku yimi Israa'iil gaar ahaan magaalada Tel Aviv wuxuuna kulamo la qaadanayay qaar ka mid ah golaha wasiirada Israa'iil iyadoo ilaa ay hadda aan warbaahinta laga arkin ra'iisul wasaaraha Israa'iil tan iyo markii weerarka ay ku qaaday gurigiisa Xisbullah. lama ogo inuu dhaawac soo gaaray ra'iisul wasaaraha in sababo kale oo amni loo qariyay laakiin waxaa la soo sheegaya inuu ku jiro dhulka hoostiisa isaga iyo xaaskiisuba. xogta la yaab kale waxay tahay in Antonio Blinken oo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo toddobaadkan Israa'iil yimid ilaa iyo hadda markaasi dhulka hoostiisa uu ku jiro iyadoo siriyaasha digniinta daqiiqada ay u dhawaaqayaan lagana cabsi qabo weerar dhinaca duqeymaha ah iyo diyaaradaha ay geysanayaan oo ka dhaca magaalada Tel Aviv. xaalad amni ayaa jirta laakiin labadii fariin oo uu siday xogayaha Blinken ayuu gudbiyay goor hore wuxuuna u sheegay Israa'iil in inta wixii ka dambeeyay Mareykanka uusan u adkeysan karin cadaadis kaga imaanaya ururada Islaamiyiinta ah oo ay ugu horeeyaan Xisbullah, Hamas iyo sidoo kale ururka muslimiinta ah ee walaalaheena ee xaqdoonka ah ama jihaadiyiinta dhabta ah ee iyagu markaas wadankooda duulaanka lagu yahay ee Hamas. dhinaca kale daawadayaal weerar aroornimadii hore ee saaka dhacay ayaa wuxuu u dhaxeeyay Israa'iil iyo Xisbullah wuxuuna ka dhacay xadka Lubnaan. weerarkaasi waxaa lagu dilay inta la xaqiijiyay 4 askari oo Yahuudiyiin ah waxaana lagu dhaawacay 10 kale waxaana halkaas hadda ka socda dagaal qaraaro labada dhinac u dhaxeeya. inta badan dagaaladan duqeymo iyo kuwa foolka fool ah ay u badan yihiin xadka ayuuna ka socdaa. Israa'iil ayaa ciidamada ugu badan xadka geysay iyadoo oo doonaysa inay gudaha u galaan Lubnaan. ilaa ay hadda lama soo warin wax khasaare ah oo soo gaaray dhinaca Xisbullah hase ahaatee waxaa jira duqeymo xoog leh oo gudaha Lubnaan lagu garaacayo halka ciidamo lugeynayo oo infantry oo Israa'iiliyiin ay rabaan inay gudaha u soo galaan iyadoo oo ay xarbinayaan ururada Xisbullah ee halkaas ku sugan dagaalyahanadooda. ugu dambeynna Dimashq Israa'iil maanta waxay ka geysatay duqeyn xoog leh oo caasimadda dalka Ciraaq waxaana ay tahay goobo ay ka dagaalamaan urur Islaamiyiin ah. duqeyntaasi cidda ku dhimatay ilaa ay hadda lama xaqiijin oo daqiiqado ka hor ayuu dhacay weerarkaas waana war degdeg ah xogtiisa oo buuxda weli lama hayo laakiin Israa'iil marka aad eegto dalalka bariga oo dhexe oo dhan ay dagaal kula jirtaa. Ciraaq Dimashq waata hadda ay markaasi ka geysanayso duqeymaha hore waxay ugu sugnayd buuraha Golan Heights iyo goobo kale oo Israa'iiliyiintu aad uga badnaayeen gudaha waddanka Ciraaq. Lubnaan waxay rabaan inay gudaha u galaan Falastiin warkeeda wada oo barobar iyaga ayaa qabsaday waxaa jira dalal kale oo bariga dhexe oo ay qorsheynayaan inay qabsadaan. quwadaasi iyo awooddaasi Israa'iil kaligeed ma laha laakiin waxaa garab ugu ah Mareykanka, UK iyo dalal kale oo reer galbeed ah. si kastaba ha ahaatee dagaalka bariga dhexe ka socda ayaa jirsaday sanad waxayna ahayd Oktoobar 7 2023 markii urur Islaamiyiin oo ka tirsan Hamas ay cagta mariyeen qaybo ka tirsan Tel Aviv oo ay lahaayeen militariga Israa'iil tan iyo markaasi wixii ka dambeeyana dagaalka faraha ayuu ka baxay iyadoo oo la dilay in ka badan 44,000 oo muslimiin ah wax ku dhow 100,000 oo kale la dhaawacay waxaana jira inay barakaceen malaayiin kale. haddii aad intaan la soo gaarto muuqaalka like sar sidoo kale la wadaag asxaabtaada aad ayaad u mahadsantahay.